waa fanaanada caanka ah ee reer Suudaan Nada Qalca waxay barteeda Facebook si diiran ugu mahadcelisay Soomaalida gaar ahaan kuwa ku tixan ee ugu hambaliyay in bogeeda uu gaaray 2 milyan oo qof oo ku xiran arintan ayaa timid kadib markii boqolaal ka mid ah Soomaalida ku tixan barteeda ay la wadaageen hambalyo iyo tahniyo la xiriira in barteeda Facebook ku leedahay fanaanada ay gaartay ilaa 2 milyan oo qof Nada Qalca ayaa shalay gaartay tirsiga 2 milyan oo qof oo barteeda toos ugu taxan halkaas oo ay fanaanadu taageerayaasheeda kula wadaagto heesaha ay qaado Soomaalida ka falcelisay arintan waxay fanaanadu ku tilmaamayeen mid aad looga jecel yahay Soomaaliya iyo dadka qaar ay ku magacaabayeen magaasha Suudaan iyo waxyaabo la mid ah halka dadka qaar ay adeegsanayeen heestan arintaas ayaa fanaanada la fahanteeda ka falcelisay waxaana barteeda Facebook soo dhigtay fariin u dhignay sidan salaan iyo qadarin ayaan u dirayaa shacabka Soomaaliyeed waan ku faraxsanahay in aan wada xiriirno shacabkiinaas aad ka wanaagsanow waxaan jecelahay in aan dhawaan idin soo booqdo idinka alle fariin kale waxay ku sheegtay inay ku faraxsan tahay taageerada joogtada ah oo ay ka hesho iyadoo tilmaamtay inay jacayl iyo qadarin u hayso Soomaalida mid ka mid ah Soomaalida halkaas ku taxan waxa uu tilmaamay in fanaanadaas ay hadda kadib ka mid tahay bulshada Soomaaliyeed mar haddii ay garatay buu yiri in Soomaalida ay taageero buuxda u hayaan Nada ayaa si weyn u sii faafisay fariimaha hambaliyada ee taageerayaasheeda Soomaalida u muujiyeen waxay ka mid tahay fanaaniinta aadka loogu jecel yahay dalka Suudaan waxayna dadka la dhaceen codkeeda iyo masraxiyadeeda faneed inkastoo Suudaan ay leedahay boqolaal fanaaniin caan ah Nada way ka soo dhaxbaxday waxayna ka mid noqotay kuwa ugu caansan magaceeda dhabta ah waa Nada Maxamed Cusmaan Qalca waa naanaysteeda waana xaafad ka tirsan magaalada Khartoum oo ah meesha ay fankeeda ka soo bilowday Nada waa fanaanad dhalatay sanadkii 1975 waxayna fanka ku soo biirtay sanadkii 1990 muddo 22 sano ah ayay tahay fanaan waxayna inta badan ka haystaa arrimaha haweenka waxayna qaaday in ka badan 200 heesood heeseeda qaar kamid waxay kula talisaa dhalinyarada rag iyo dumar ee isticmaala baraha bulshada waa fanaanad hore qayb uga noqotay arrimo muran dhaliyay oo heese ay ka qaaday inta badan heeseeda iyada ayaa sameysata heeseeda waxaa qayb ka ah kuwa siyaasadeed mid ay dhawaan qaaday oo ku saabsaneed isbeddelka ka dhacay dalka Suudaan ayaa muran dhaliyay warbaahinta qaar ee dalkaas waxay sheegeen in khilaaf uu soo kala dhexgalay Nada iyo ciidamada kadib markii heestaas la shaaciyay haddaba ma ka mid tahay taageerayaasha fanaanadan